taliska ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ayaa saaka soo bandhigay dowlatus tilmaam u ah sida ay ugu diyaarsan yihiin difaaca xeebaha oo iyagu mas'uul ka ah ilaalintooda. Guushii laga gaaray maxkamadda ICJ ee dalkeena lagu xugmiyay lahaanshaha badda ay muranka gelisay Kenya ayay soo dhaweeyeen. Taliyaha ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya Admiral Cabdixamiid Maxamed Axmed Dirir ayaa sheegay in guushaas ay u soo yeetay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu ugu mahadceliyay in waqti iyo dadaal uu geliyay in aan gorgortan la geli karin taaka ka mid ah dhulka iyo badda Soomaaliyeed. Dhinaca kale waxa uu sheegay in ciidanka badda waqti la geliyay dhismahooda iyo qalabantooda si loo soo celiyo hay'adkii loo yaqiinay. waxaan aad ugu mahadcelinayaa dowladda federaalka Soomaaliya ee uu madaxda ka yahay mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo runtii dadaal aad u badan iyo shughul aad u badan u geliyay inaan gorgortan la gelin karin taaka ka mid ah badda Soomaaliyeed ama dhulka Soomaaliyeed. aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha. runtii ciidanka badda Soomaaliyeed waa ciidan muddooyinkii dambe aad loo dhisayay xukuumadda iyo madaxweynuhu ay u soo jeedeen inay aad u dhisaan dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka badda Soomaaliyeed. runtiina waxaan aaminsanahay in ay ciidanka badda Soomaaliyeed ay hadda tababarkooda iyo qalabeyntooda iyo sida hadda loo tayeeyay ay ku filan yihiin inay ilaaliyaan badaha ama biyaha Soomaaliya